isla markii maskaxdayda ka shaqeysiyay in kaamirada la soo celi karo way ka dhacay inaan ka arki karo dadkii oo dhan ii jeedaan saan dhahay kaamirada aad wala yaabaya marka ugu yaraan marka 500 qof fiirsanaysay si fiican mega rumaysanay markii aan inta arkay aan sida ay ahayd u dhigay oo filimbiga aan rigoorada dhigay 20 daqiiqo wala sabcinay dadkan ka soo Soomaalidu daayir hadda ay dhahayaan boorso markay magaalada u qaadanaysa weligeed ma is qaadana u qaadi jiray boorsadeeda ana qaay markaas waxay dhigi jirtay maana soo gatay mas'alo ku soo gaday laba noo soo gadaan daadii ina wax qaad lagu talagelin marka haday waqtiga ay arki lahaayeen daayir ama gorilla ay dhihi lahaayeen dum kula rabaayada guriga ii joogtay marka galabgalmaha kamid ah Bulooni aaday waxa imid ayadoo guriga dool ku cuntay waa fakar waxa inuu kulashaan ku joogta si ay dambi kale u galin si fiican oo naf kale u geeyno ina dool saaxiib ka dhigtaa kulan wanaagsan daawadayaasheena Itaal Media meel kasta aad nagala socotaan waraysigan xiisaha leh waxaan idin keenay oo aan idin balaminay Ibrahim Xasan Legend Gurey abaha jacaylka habboon abaheed ninkii Muqdisho keenay faar in la fiiriyo ayadoo ciyaar caadi ah la qabanayo in faar la isla aado ninkii bilaabay waay ku soo dhawow marka hore Legend Gurey abaha jacaylka habboon abaheed Ibrahim Xasan soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay walaalkii Aways waana ku dhawahay Itaal TV waxaan salaamaa marka hore kaamiristayaashiin sida sharafta leh waana dhawahay way markuu ugu horeysa waxaan rabaa magacaaga Ibrahim Xasan waaye ciyaal xamaraad tahay ciyaal xamar hore iyo haddaba waliba daawadayaasha waxaan ka ilmaamay inaad tahay nin 30 sano Yurub ku soo noolaa xamarna sidaas oo kale marka berbiyood inaad tahay berigan inaad ku noolaatay biyahana inaad ku noolaatay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay kugu baxday abaha jacaylka aad u mahadsantahay su'aashaas intaan ka jawaabin waxaan ka faa'iideysanahay waqtiga galabta ay haya waxaan rabaa halkaan inaan ka salaamo laba gabdhood laba wiil iyo gabar aan dhalay gabadheeda Haniye iyo wiilkayga Harun iyo wiilkayga kale oo Hilaal ah iyo hooyadooda halkaan ka salaamo oo ku nool wadanka Holland iyo wiilka oo hay gabadheeda dhashaasna waa salaama dhamaantiin caafimaad ku noolaada haddaan su'aashaas ka jawaabno abaha jacaylka marka la ii bixinayo isembiyo waxa arkaysaa nin gurta Bulooni ku dheela guriga la leeyahay waxa arkaysaa nin dhego aan dhigay la leeyahay marka dabcan waxay ku cadeynaa in jacayl lagu bixiyay marka naxariista aan dadka u naxariisto kelmadaas lagu baxshay abaha jacaylka waxaan rabaa xamar markii aad joogi jirtay ciyaal xaafadda ahayd waa mahadsantahay nin xaafadda Holland deganaa waliba baar wax jid mareexaan ka deganaa ilaa haddana aan deganahay xaafaddaas aan ku noolaa waqtigaadii hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii aad soo barbaaraysay maadaama magacan abaha jacaylkan aad weydiid dadku waxay isweydiinayaan ninka nin jacayl soo dhameeyay oo meel soo tiiriyo waay si ahayd macnaa shukaansigaaga iyo la falgelidaada lamaanayaasha lamaannimada maxay ahayd waa mahadsantahay nin horta jacaylku ma dhammaado waa wax nolosha ku xiran laakiin qofba si u soo mara marka nin jacayl oo ahaa gabadha ilmaha ii dhasho kale aadan saaxiib wayn intaan isguursan waliba inkastoo Soomaalidu daayir hadda ay dhahayaan boorso markay magaalada u qaadanaysa weligeed ma is qaadana u qaadi jiray boorsadeeda ana qaay markaas waxay dhigi jirtay maana soo gatay mas'alo ku soo gaday laba noo soo gadaan daadii ina wax qaad lagu talagelin marka haday waqtiga ay arki lahaayeen daayir ama gorilla ay dhihi lahaayeen daayir way marka waa u samaysnaa waan u jajabnaa inaan u naxariisto dumarka shabeelnaagood ma ahayd mise nin maya nin hal naag lagu ogaay oo waxaan ahaa ay ku ixtiraamaan gabdhaha kale oo xaafadda degan waxbarashada iyo banooniga balood aan walaha ilaa hadda labadii aan haystaa banooniga aan aad u dheelaa ilaa hadda marka balood kalena ma lihi aan jeclahay banooniga waqtigaaga isku loo dhahaydeen niyo Mukhtaar Cuti maxamed Nuur Amiin oo macalinka hadda ciyaalka 17 jirada haya guulo badan gaarsiiyay meesha waan ka salaama asagana Mukhtaar Cuti asa kamid ah deysana kamid oo BBC hadda u hadla ragaas oo dhan markay arkaan waxay leeyihiin galabta nin weyn meesha fadhiya si fiican maxay kugu suurtagali weysay inaad naadi u ciyaarto xilligaas yow 10 naadi wadanka jooga 10 koodaba macal dalaalin oo loo soo diray waa yimaadeen gurigeena laakiin aabahay Allah naxariistay oo ila rabay inaan wax barto ayuu kubadda waagi hore waalidku kubadda wax kale ka aaminsanayeen ninka kubadda dheelo iskool ku sagsaagayo alxamdulillah kubadda markaan dhaafay ilaahay jaamacada aabahay gaarsiiyay asoo waliba lacag lahayn oo faqri ah Allah naxariisto oo duceynaya marka kubadda waxa sabab u ahaa inaan iska joojiyo laakiin bacaadka iyo markii lagu dheelaa shaqada la dheelayo xaafadda waa la wadan jiray
marka aad fan ugu ahaa way waxaan rabaa waxa ka soo dhex muuqatay filimka caan baxay dad badan ay xiiseeyeen musalsalka Habboon gabadha Habboon laftirkeedii aabaheeda ahaad sheegateen filimka dhexdiisa waxaan rabaa intaanan filimkaas wax ka weydiinin marka magaalada joogtid hadda isla soconay qof walba oo ku wacaya caanata haddana YouTube ma lihid TikTok ma lihid baraha bulshada yani waxyaabaha nin akoonkiisa uu aad u shaqeeyay matii maxay ku dhacday in haddana caan tahay waa santahay niyow horta media oo dhan waxaan ka leeyahay wax la yiraahdo WhatsApp oo aan kula xiriiro dadka bulshada waliba gaar ahaan ilmahayga iyo gabadha xaaska jirtay marka aad waxaas media lahayn hadana 10 qof oo wadanka ugu caansan aad tahay adii laftaga is cajibinaya filimkan Habboon ka hor ina caana waxaan isku ogaaday waxa isla soconay maalmaha kamid ah aniga Najiib Aadan iyo Babaje geesu xigay ana gees kala xigay mootaan sareen Najiib dhexda ku jira liida u soconay waxaan ka baxnay number 4 marka aniga markaas ma igu jirto inaan tiriyo dadka salaama marka ilaa Babaje waa nin aad u caqli badan runtii caqliga Allah u daayo saaxiibkii aan jeclahay oo inta ka salaama wuxuu tirinaayay dadka asaga salaamay dadka aan salaama طريقة من كاميرا موتور جامع قال بابجي أبا جعلك بابجي ليه سنين كنت أقول له دقيسو هاي عنده لبي لا تقف على سنة طوله لبي توم بابجي ده طبعا أبا جعلك ما أنت لقب بالله وحيد وعيد اللي أنت وده إن عارته قلبت تاسد أقعد إن العانه صوب مرك محا عانكو نقط نيو ورطة مستلي وحا عانكو هاي مركات في لسه ورطة حق سبورتيغا مودي أصلا أنت وكسلامة قاسمة سبورتيغا أصلا galab kasta oo la dheelayo oo lagu dheelayo garoomadan caadiga ah garsooriga dhiga galbaha qaran habeenada qaran ay asaas leelna maadaama dhalinyarada ku dhex jiro nin aad marka loo dagaalo ama la saysta aan xalliyo marka saasay marka dadka aad ugu ixtiraamaan waxaan maqlay in oo maalmaha isniinta iyo arbacadii inaad kala booqatid isbitaalka Digfeer xabsiga dhexe macnaha adoon xitaa xanuunsaneen isbitaalka tagay waa booqanay dadna ma kaaga jiro xabsiga tagay dad ma ka xirna macnaha waxaas maxaa ula jeedaa nin horta in la ogaado ma rabin media inaan ka sheegana ma rabin waxaan khaasay ahayd koo horta waxaan ka soo bilaabay 30 sano oo Yurub ku noolaa shirkada u shaqeynay oo nadaafada ahayd oo aan ka shaqeynay bil kasta koodeeda basasaan naloo keeni jiray shaqaalaha oo dhan waxaan naloo wadi jiray isbitaal loogu talagalay dadka kaankarada qaba oo dhaqaatiirtu ay dhaheen maal hebel dhimanay dadkaasaan soo booqan jirnay mushaarkeeni ku jirta shaqada aan shirkadda u qaban lahayn markaas wala joojina bil kasta koodeeda marka waxa arkay qof bisha dambe markaan tagna waa dhinta lagu dhahayo meesha aan ku soo aragnay bisha dambe qof waxa arkaysa ka taalo marka meesha saan ku soo bartay halka marka imid marka dad igu diina igu kalara igu muslim islaanahay daris aan nahay dadka qaar hadda habartiis ama si wareysata ay soo galeysaan meel ay jireen oo ay ku jiraan inaan booqan waayo aqrab ila noqotay isniintii aan joogtay marka isbitaalkan weyn oo Digfeer runtii waa isbitaal fantastic ah waxaan maqlay hadda koor in dad deganayeen 30 qoys ama 40 qoys deganaa waa laga bixiyay dadka ka bixiyay khayr Allah siiyo maanta yoonkii 100 qof 1000 qof oo jirana galaysa 1000 qof oo jirana isniinta dambe ka soo baxay marka dadka ka dambeeyay isbitaal laga dhigo waa ku mahdina isbitaalkaas waa booqda isniintii dadka qaar oo isna qaano media ay arkaa isbitaalka shaqeey waxay yiraahdaan nin hudaya ka jiran yaa ku diilay ma abtiga ama adeerka markii dambe waxay ogaadeen marka in aan dadka dhan qol kasta aan galo 6 qof ku jirta waxa cajiib u noqotay waliba qof jirana u tagay oo taageera baraha bulshada iga taageera xanuun biya lagu duraa ehelkiisa ag fadhiya 20 daqiiqo 30 daqiiqo ma hadli karin markaan u tago misalka sawir kara uu leeyahay qofka xanuunsanay marka farxad weyn ay tahay in qofkaas inta soo kiciyo isla kay sawiro waxaan halkan mahad uga celinayaa Cabdullaahi Cadow oo qaybta maaliyadda jooga oo runtii ah nin aad u naxariis badan markii aan qof inta caawiyo oo saf ku gali waayo oo number u baahan oo kale oo qofna aan wadina u geeyo numberka fududeeyo lacagta inta qofka dhiibto ilaa qof kaliya socda jira mugtahay oo ehel iyo waxba la socon qof ehel la socdo oo aan lahayn karin oo dhakhtarka inuu ciyaar arka rabo oo 60 qof ka horeysa oo fududeeya asaana ii sabab inaan u sameeyo dadka ma aqaan isku qabiil lama leeyahay hadda ay dhinin lacag ka qaata ama ku qabiilo yahay ninkaas Cadow waa u mahad celinaya emergency nin joogo Dr. Axmed la yiraahdo runtii nin aad dhalinyaro sports ah هذا أصلا أقوم هالعلاية دكتور كعذر هذا جود أو أصلا ويل اللي راه PhD أو تركي وعصابرتي هل كان كسلامة ثمتي شغالها يريد يجوا ساعات كستهبين كش ساعة حتى أنجلي كرو
ayagana waa u mahad celinaa isniinta subax hal saac aan tagaa galabtii 12 saac maqribkii ka soo tagaa qolalka dhan waliba waxaan u badanahay oo aan aad u fiiriyaa qolalka ay ku jiraan carruurta yarka ah okay xabsiga dhexe maxaa ka doontaa xabsiga dhexe arbacadaan tagaa waa arbacada waa markay waalidiintu soo booqdaan qof iguma jiro waa tagaa banaankii waalidaan iska dhigaa dadkaan madaxa u soo wada salaxa nin marmarka qaar toogasho ku xukumanaan leeyahay bilkiyaad bixi haddii ilaah yidhaahdo mid 5 bil ku xukumana waxaan leeyahay waqti waa kuu soo ordaa waxaase cajiib igu ahayd yar 6 bilood ku xukunaa oo arbaca walbaan u tagaya la soo daayay xabsiga markuu dhammaystay cidiisa moota u gaday mootada soo wado maalin nambar 4 iga qaaday gurigayga baar wuxuu igeeyay lacagta markay dhiib maagay ninkii mootada ka soo dagay oo hin dharkayga dhan u haleeyay waa fakar waxaan isna barbalena haysta waxaan isdhaar ma wax jiq ku yihiin wuxuu aad ma lacag ka qaaday hooyadii aabay 6 bilood ma iimaan 6 bil ay soo boqonayso adeersan lacag ka qaada aan isla ka sawira nambarkaagan isii ilaa hadda waa isxiriirinaa dadka waa iska jecelnahay marka dadka waxaan ku guwaabin lahaa team waa sameyn lahaa oo 5 qof 6 qof oo dhalinyaro wacyi geliyo ila booqata laakiin kor marka laga arko waxay leeyihiin hay'adda lacag siisay marka waxa lacag ma rabe bal kaliya heliiday aad oo maasantay waxyaabaha kale oo maaragtay markii adiga lagu maqlo ama laga sheekeeyo la soo xasuusana oo yaabka badan waxa kamid ah mukulaal iyo dooli ama maaragtay jiir iyo bisad aad iyo adiga saddexdiina saaxiibaad ka dhigtay muuqaal aad samaysay xitaa waa daawada wax xogaa waxa waaye oo cajiib ah see ku suurtagelisay ama santahay niyo markii Soomaalidu dooli mukulaal maqlaan cunada ka dhaxaysa inay is cunaan niyo mukulaal rabaayada guriga ii joogtay marka galab galmaha kamid ah balooni aaday waxa imid ayadoo guriga dooli ku cuntay waa fakar waxa inoo mukulaashan ku joogta si ay dambi kale u galin si fiican oo naf kale u geeyno inay dooli saaxiib ka dhigtaa si fiican shabaqan baloonigan liida ka soo gatay oo malayga lagu dabo dooligan basal u dhigay waa ku qabtay qolkii alaabta dhan ka bixiyay mukulaashii dooliga iyo anigii qolkii iska xiranay qiyaas adiga qol shuba oo dhar oo alaab oo waxba oo faaruq ah lixindood mukulaashii waa dharjiyay dooliga waa dharjiyay anna waa dharjiyay horta wiig iskuma soo dhawaan waliba habeenada qaar ma seexan jirin mukulaashii waxaan sir armay cuntaa dooliga wiig kadib waa isku soo dhawaanay inaan isla ciyaarnaan gaarnay adoo muddo 8 bilood kadib labadoodii anoo jiifay xabadka ayagoo iga jiifan video waa television wala iga duuba waa yaala waan korgareysan yahay dadka qaar waxay yiraahdeen niyow hadii badooli in kulaal ay heshiisay askartaan jagboonteeda ciyaalka ku dilay bajaajleeda ma qoryaha ka qaadid runtii waqti leh u baahan tahay ma ayaga xataa laga qaadi karaa wacyi gelin u baahin loo sheego u baahin qisadaasna hadii alla idmo rabadaanta ila darjiyo ayaga laftooda darjiyo baahina marka qisadaas ma wacyi gelin adiga maya waa baahitire marka in la darjiyo leero hadii wax dhiba in la darjiyo rabaan marka waxaan ku weydiinaa marka dooligan mukulaashan macna marka Yurub joogtay miya dooli mukulaal oo European ah miya mise dooli mukulaal oo Afrikaan oo Soomaali ah dooli mukulaal Soomaali ah mukulaasha ay joogtay dambigaas ay geysatay inay mar dambe kala geysanin abaalmarin mu ku heshay bilad sharafeed ma uu siiyay maya aniga waxa maya bilad horta qof Soomaali waxa arkay SMBO dadkaas hadda aan isbitaalka ku soo booqdo dad badan waxa jira inta reesta magaalada igu arkay you can't imagine ay qaabilayaan ama islaamayaan $100 hadii la sii waa iga fiican tahay qofkaas aan aqoonno aniga xataa aan aqoonno oo la qof hal maal u tagtay ma aqoon kartaa asagoo ku aqoona qofkii marxaladda ugu tagtana waa ka duwan tahay marxalad labada qof ee ku baahan qofka xiran iyo qofka jiran sax qofkan kale magaalada socdo oo inta ku shaqaashan door isii ku dhaay ma ku baahnaa adna ma baahnid marka dadku waxaan ku wacyi gelinayaa hal daqiiqo Allah ka dhigay in la tago dadka jiran iyo dadka xabsiga ku jira si fiican mukulaashii dooligana waxaan tusaale u soo qaatay u sameynaa in wax kasta Obama wax yar shirka aan ku daraa hadaan daaqsan fursadda daysis Obama waa nin Kenyaati ah oo madow ah saaxiibkiis oo kale oo sharciyada isla dhiganaya jaamacadda wuxuu yiri maalin nin waxaan rabaa madaxweyne Mareykan aan noqdo kii waa ku qoslay niyo duruma ku jirta riya ku jirta yes we can wada waa sameyn karaa wada madaxweyne Mareykan da idin sheegana Jarmalkii qaxay iyo Talyaaniga qaxay iyo Hollandeeska qaxay oo Yurub oo America aaday ma noqon karaan xataa iska daa nin madow Afrikaan Irish wadan la yiraahdo oo yuhuudana aad ay u kabaan aqabta boqolkii sano ugu dambeysay madaxweynaha Irish ka soo jeedeen Mareykanka ninka meesha sawirsta soo Kenyaati cajiib ah yes we can waa sameyn karaa wada jaamacadii ka baxay xisbiga ka mid noqday xisbiga doortay dimuqraadiga oo ka mid noqday in loo doorto doorashadii ku guuleystay habeenkii marka xafladda saaxiibkiis kursiga u horreeyay fadhiyay
yes we can inuu America u dhahay waa wada maqlayna kulligeen ninkaas ugu talagalay yes we can America inuu sameyn karo maalinkaas uu sameeyay marka anaga yes we can everything waa la sameyn karaa laakiin juhdi u baahan tahay sabar صح واي iyo waqti quraanka inuu tahay intaas waa absolutely waxaan rabaa markii inaan ku weydiiyo adiga heesma dhageysataa ma xiisaysaa waa xiisaysaa hadii heesa fanaaniinta Soomaalida gabdhaha hal fanaan la xiisaya aadna aan taageero ugu hay marwada aftigu ahay Saadi Sharaf صح shaashka oo taageero heeseeda la dhageystaa qeyr la siihaa wiilasha wiilka adeerku ahay dayaxdan nuurshaasna aad u taageera asagii balawdiisa qaaliga waa salaamaya ayagana labada safan ka taageera heesii hore waagi xaafadeedka xamar waqtigeeni oo waagi nabad ahayd maxamed sallallahu alayhi wa xasan samatar xalima qalif mawla Allah u naxariiste dadkaasna dad waxay ahaayeen marka ay soo maqalno ilaa hadda aan la koobiyin karin xataa ay ahaayeen ayagana dad sanka sumcad kale waa in carabaa ku fiican marka jacayl jili jirtay hal hees oo ku ceshan jirtay qorraxda aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobad heeskaasaan aad u jeclaa xasaas u qaaday abaa jacayl waxaan rabaa waxaa ka soo dhex muuqatay musalsalka oo habboon maxay ku timid inaad jilaan noqotid oo musalsalkaasna aad ka dhex muuqatid maxay ku timid qaabkee waa mahadsantahay horta nin oo musalsalkaas musalsal farta ka xiran u ahaa dhammaan dadkii fiirada lahaa dadkii kaambista ahaa dadkii jilaayay waa u mahadcelinaya musalsal in Soomaaliya ay wax samayn karto yes we can inay dhihi karto qabri hada fiir xamar maalin kasta qof ku dhinta looma ooynayo nin beenoo la duway loo ooyay waa wada ogan kulligeen basal indhaha la kaga aad maya dadka xataa ma aha oo filinka dhigay ma aha dadka banaanka xataa isku ooynayo ma dhintay isdhahay maalin kasta agtana lagu dilaa ma isweydiino marka taas waxay cadeynayaan dadku in ay macnaha u baahnaayeen in hindigan iyo turkinan laga nasiyo hada aniga ahaan ku sheego dabcan dadkii ii wacay aniga waa u mahadcelinaya waxay raadinayeen aabba abdeyda runtii aabba waa age aabanimada ku jira abdeydnimada waa iga muuqataa ayada nafteeda gabadha runtii aabba u noqday waa gabdhaha lagu faano in aabba loo noqday way ku jirtaa ayada nafteeda waa salaama habboon markii la itusayo mas-uulkay la tusay ninkan ma lagu dari karaa ayadan waxay tiri yes tigtay saartay saasaan kusoo galay marka filimka markii ugu horeysay marka ma ahayd oo wax jishid mise horey mu dhacday in istijaabisay wax jishid YouTube dad dhalinyaro ah oo YouTube kala kacsanayay oo short film sameynayay aan dhowr xabo u sameeyay kan marka maadaama musalsal sidaan u weyn uu ahaa markii ugu horeysay oo aad wax jilaysay dareenkaaga iyo maxaa iska ka bedelay iyo ya runtii markii aan jilayay oo la iga waxeenayay waxaan u haystay inaan maqaayad wax ka cunayo kale inaan aabba been ah iyo laakiin markii aan inta shaashada ka soo muuqday asagoo musalsal aan soo galay ani hatta way ajabiyay aad u ajabiyay dad badan oo yaqaan oo soo wacay waa hambaleen waa wareey marka ani waxa aqaana markii qofka uu warinimada ku cusub yahay oo idaacadda inuu ka hadlo ama telefishinka uu ka hadlo waxaa jiro wax la dhaho microphone shop qofkii inuu xoogaa cabsado ya kabacdi maalmo inuu la qabsado adi marka xalqooyinka markii la jilaayay tusaale ahaan ama qaybtaadii markii aad wax jilaysay marka kugu horeysay qaybo aad naxnaxday ma jireen mise caadi ahayd maya markaan yaraa xataa sportiga ahaa dhalinyarada markii Brooklyn ka imaano meelo jardiinooyinka aan fariisana dadka ka qosliyaan ahaa marka in laba qof saddex qof afar qof shan qof arintooda aan wax ku dhaho waa u soo barbaaray marka cabsi ma igu jirin mid kale hadda 10 daqiiqo isla soconaan iyada mootan wada saareen dadka waa ogeey teel aabba jacaylka habboon aabaheed dadka waa islaam filimkaas inaad ka soo dhex muuqatay dartiis maxaa saameyn ku yeelatay wanaag xumaan ya لو فيلم كورت وحونا كويا شيء مال أبا نمنا مال توج اللي جم جليل مال ترشد النينجا أو كتورة يا حاسدنا اللي جم دقين أبا اللي دقين أبا نسومال دوا احتراما أبا شيفتي أبا يسحب على المهن ما يا لكن قبل أنا إيجا مغنيت لفتي شكل فيلم كويس إن قبل إيجا مغنيت لكن قبل دي إيش قبل أنا نخلي ما قبل إيجا مغن تاني فيلم قصة قبل إيجا مغن وقت إيجا دون تديك لما بيلي سوق جليل ويسكو إكادين وهكذا صار مركب مهتم التكنولوجيا اللي جوجو ديان إيجا نكلا صاري مركا لكن هالك كلمة عن ذاتك عن كلام كل ما وحيد أبي بنتها أبي هبون شيكتي أوكي ما حاسامينه كوجي شيء إن فيلم كاس ده كوباري صح إن
magaalada laakiin sidiisa kale niyow horta filimka markaa kasoo muuqday haddii nin faarax la yidhaah oo hadda kahor sideedoo kale aabbaha jecelka oo caan ahayn haddii laga soo muuqan lahaa magaca filimku qaadan lahaa laakiin ani stiil magacii filimka la isiiye xataa oo odo cabdulla ahay xataa qof igu caamale aabbaha jecelka weli la yidhahooya marka filimka saameyn ma igu yeelan ka hortiis aan magac lahay laakiin asaga laftigiisa saameyn lahaa laftigiis saameyn lahaa taasaan ku faraxsanahay waay gabagabadaan joognaa maxaa jeclaan lahayd xasuusahaagii haddii ay tahay wax tala ah oo dhalinyarada maanta barbaaraysa waqti haysata aad u jeedin lahayd maxaa kusoo gabagabayn lahayd niyow su-aashaas aada u mahadsantahay inaad uga faa'iidaysta meeshaan dhalinyarada waddankeena joogta horta nabadda inay ku baaqaan qabiilkana iska dhaafaan totally qabiil waxa uu noo taraay ma laha in nabad loo jeesto markaas kadib wax kastaan suubin karnaa bisha ramadaan nagu soo foodla ilaahay waxaan ka baryaa khayrkiisa inuu na waafajiyo ilaahay roob aan dhibaato keenin inuu noo keeno marka roob hadda oo dadka u doonaxaya kaasna waxaan ka baryaa ilaahay roob aan waxyeelin inuu noo soo doo oo ilaahayna kala jaro intaanan ka bixin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muqdisho waxaa la leeyahay faarka asaa ka bilaabay macnaha adduunku wuu ka jiray fifa way keentay yurubaa lagu dhaqangeliyey laakiin adoo arbitr ahaayo oo waxaa la arkay faar aaday see ku dhacday sheekadaas niyow galab cayaar fiinaala anoo qabanaya oo garoonka macquul astaan kaamirooyinkooda duubayay cayaartii oo fiinaalaha balooni rigoore dhexdeeda meel aha gacan lagu taabtay baloonigiina wax yaraa ka dhima saacaddii buuq badan iyo juhdi badan iyo cayaartooydii wixii dhan igu soo orday wax aan sameyn kasi waayay waa fakera marka waxaa inoo seexad loo helaa mar waxaan ku fakeray laba qof oo akhyaar ahayd oo fiirsanaysay inaan weydiiyo u tago laakiin adigii anaa aaminsan labada qof laakiin dadkii kale ma ku qadhacayaan isla markii marka maskaxdaydan ka shaqaysiiyey in kaamirada la soo celi karo waxay ka dhacay inaan ka arki karo dadkii oo dhan oo ii jeedaan saan dhahay kaamiradiin aaday waa la yaabaya marka ugu yaraan marka 500 oo qof aa fiirsanaysay mega rumaysanay markii aan inta arkay aan sida ay ahayd u dhigay oo filimkii aan rigooradii dhigay 20 daqiiqo wala sabcinay dadka aad u sabcay way farxad gelisay runtii in wax kasta la sameyn karo dhalinyaradu absolute go'aan fiican aan qaatay laba qof marqaatay inaan ka dhigo kadib waxaan ogaaday laba qof inay ayaga ku qanacsaneen isla markii marka dhinaca kaamirada u jeesta maskaxdan ka shaqaysiiyay dhalinyaradii markaas waa iga wada labada tiim waa qanceen markii tiimkii awal lahaa been way rigooro ma iyo tiimkii runta dambiga laga galay labadiiba marka ilaa kaamirada been sheegaysa markaas Xasan Lajangurey aabaha jacaylka haboon aabaheed ninkii ugu horeeyay muqdisho faar keenay ninkii ugu horeeyay muqlaal iyo dooli oo Soomaali ah ee suurtageliyay inay heshiiyaan oo hal qol si nabadgelyo ah ugu wada noolaadaan nin ciyaal xamar ahaa maaragtay ciyaal barbax anigoo ciyaal buluxubay ah awriisanahay inta aan waraysi kala wada kulmi doono ama siyaasad ha noqdo ama madadaalo ha noqoto ama wax kale dhaqaalaha aan uga hadlayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas nabadgelyo aad u mahadsantihiin asxaabteena Itaal